marka waa garan kara in biyahaas culays badan iga saaran yahay waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo hadda reer dhuusamareeb baan ka bilaabay mar walba markii roobku doo oo barwaaqa dhacdo daad baa qaada oo guryaha galo dukaamada galo khasaare soo jeedi magaalada geeskeeda meeshii biyo ku imaan jireen waxaynu kaga xiriirnaa marka juun la gaaro biyo xireen weyn oo beeraha jireen waxaynu kaga xiriirnaa marka juun la gaaro biyo xireen weyn oo beeraha ku falataan oo xoolaha ku dhaqataan ugana nabad gashaan quruxda magaalada iyo tacadiyada ay ka geystaan biyuhu waxaa sahal lagu sameeyey 20 barood oo galmudug ka mid ah oo bisha juun ka bilaabi doona biyo xireenno waaweyn haddaad taqiineen xulfooyin iyo baliyo yaryar oo hoos loo qodo waxaa idinku soo socda in qofkii nolosha ku gaadho biyo xireenno waaweyn oo waxaa loo yaqaana dhaamamka ah oo webiyaal u dhigma kuwaasoo aad ku manaafacayn doontaan dad iyo dunyaba haddii lahayd intaynu wasaaradda nimid boqol maalmood iyo xoogaa baa dheer waxyaalaha halka dheer oo aanu qaadnay iyo dhaqdhaqaaq dheer oo aanu samaynay ka suurtagalay waxaa ka mid ah 10 ceel ama 11 ceel oo awal la qoday laakiin dayacnaa soolarraduna ay ka dayacnaayeen qayladhaan awgeed dhammaantoodba intaanu joognay ayaa la dayactiray hay'adihii shaqada ku lahaana ay dhammaystireen waxaa iyagu weli isdaba joog u soo galaya magaalo madaxda in waxa dhiman la dhammaystiro iyadoo maanta qaar madaxda dawladdu ay aadi doonaan oo dhammaystiri doonaan taasoo keentay xafiisku inuu gargaraaco albaabada shaqada ku leh waxay wasaaradda biyaha iyo tamartu biyo kaliya madax uma ihi waxaan u nahay waxa loo yaqaan tamarta oo ah korontada ayaa waag hore la isticmaali jiray hadda waxa la isticmaalo waxa la solar kaas la isticmaalayo waxa rabaa 8 magaalo oo ay gurceel u horeyso oo dhuusamareeb ku jirto oo gaalkacyo ku jirto oo hooyo ku jirto oo caawuda ku jirto oo cadaada ku jirto oo balanbala ku jirto inta sanadka dhiciisa inay wada noqdaan وأنا أقول هذا برشة يقولوا هذا بدل له يساك وسالته ويلي هدي اللامجة صار الكوكوي هاي حافظها أيام جيد دونا ورشها سلوا صوص إن الأسلحة سابتمو وقالوا قفوا لما كرتدي سلوا صارتو ودتكم اسكت درشدو oo la tartamo waxa lagu gaari karaa bulshada oo madax kor u qaada oo dawladnimada ilaashata oo waxtarka ilaashata oo quruxda ilaalisa oo u hiilisa hadba dawladda cid wax qabanaysa dawladnimada oo loo hiiliyo amniga oo loo hiiliyo wuxuu maalin walba soo kordhinaya in aynu noqono horumar ballaaran hoolka aan ku jirno bilkoor wuxuu ahaa meel qashinka lagu daadiyo oo aan idila soo galin inuu saa u qurxoonaado oo ganacsato saas yeesho waxa asbaab ah dawladda midaysan ee nabadda soo celisay ee dawladnimada soo celisay ina ku mitidaan oo aan qof dantiis in u dayacmin iskaga daadin ayaa xilliga ka saaran yahay oo la idinka rabaa inaad nagu difaacdaan oo nagu socotaan way kala mudan tahay magaalo madaxda ayaa lagu gartaa dawladnimada iyo quruxdeeda iyo horumarkeeda iyo habka u socoto waxa la ogtihiin in weerarna ku yahay oo aan nolo ogolayn inaynu iftiimino oo qurxino deegaankeena waa laga tagay in xabad lagu dagaalamo siyaasad baa nolo kala dagaalamaya xaflada ina soo qurxisaan waxa ka muhiimsan in la qabaqaabiyo barnaamijyo lagu muujinayo midnimada haysano iyo dawladda haysano iyo horumarna ka tashanayno inaynu difacno dawladdu ma difaaci karto haddaan dadkoodu banaanka soo bixin oo ay soo muujinaan ayada waa soo gaabinayaa dad